iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeex ay xukun gaadhay 3 sano iyo 6 bilood ay ku riday Cabdimaalig Muuse Coldoon oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa xabsiga weyn. Telefishinka Saba ayaa arrintaasi wax ka weydiiyay xeer ilaalinta Soomaaliland oo hore dacwadan ugu soo oogtay Cabdimaalig Muuse Coldoon, waxaana uu hadlay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mawlid Cabdi Muuse oo weydiiyeen arrintani xukunka Cabdimaalig Muuse Coldoon la siyaasadeeyay, isagoona eedo kala duwan u diray qaanadii u doodayay Cabdimaalig Muuse Coldoon. dacwad maalmaha ba socotay oo weeda sana ka ahaa in Cabdimaalig Muuse Coldoon runtii dacwaddaas aka go'aan baa laga soo saaray. Cabdimaalig ilaa wuxuu lahaa 4 qareen haddii aan qaldanayn horta 3 qareen waan hubaa. maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhan bay furnaayeen. runtii dacwaddaasina waxay ahayd dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. maxkamadduna waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xariga. runtii way arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. waxaana habboon in anagu xafiis ahaan waxay ka hadlayeen inay lahaayeen xeer ilaalinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba cadaalad darro xukuntay. runtii waa waxaanu aad iyo aad aan uga xunnahay. ninka nidaam sharci loo maray, maxkamadda la horgeeyay, wuu istifaacay, maxkamad furan bay ahayd. markii xukunku soo baxay de waxay ahayd in ay barsoska ama u maraan nidaamka xaqa u leeyahay raxfaanka. de Soomaaliland intii jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qariinaa jira intii Soomaaliland jirtayba maxkamadaha ka doonayay oo seniora, qariino kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo hufan haya. runtii laakiin se waxa jira group koox yar oo qareen ah oo caadaysatay in ay media kiis kasta oo halka markii ku guul dareystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku feelgaroobaan ee ay difaaci kara waayaan cidda ay matalayaan dibadda ula baxa. waxaanu huwa dadkaas inay yihiin dadaan isku kalsoonayn, cid culays ma saartay iyo meel wax la iskaga yeedhiyay de cidda le waxba la yeedhiyay ayaga cadayn. de Soomaaliland way dhici jirtay in madaxweynaha ama la dhaliilo ama wax laga sheego si adag loola hadlo. ilaa xubno kamid ah xubnaha xilalka ayaa iyaga laftirkooda madaxweynayaasha ka horreeyay wax ka sheegay. marka maxay kaga duwan tahay de madaxweynaha dhaliil ama arrin loo jeediyo tani oo ku keentay in dacwad lagu qaado qof hay'ad wax ku xaqo oo mashaakil anagu eedaha kale ee ku taagnaa waxa weeye Cabdimaalig inuu qaranka ama nidaamkeena dawladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. sababta waxayna dad dimuqraadiyad mayno dadka madaxweynayaasha waan dooranaa. intii Soomaaliland jirtay intaas madaxweyne oo kala dambeeyay ayaa jiray. haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay waxa weeye anagu waxaan xaq waxaan ka hadlaynaa qodobka 115 inuu ku kiciyay propaganda qaranka. xaq uma laha dictatorka shiibku waynu naqaanaa. Siyaad Barre inaga filnaa dictatorship. Maxamed Siyaad Barre ayuu inaga filnaa. aqoon baynu leenahay. dictatorku waa nin powerka gacanta ku haysta. institution dawladda shaqeeya ma jiro. inagu waxaan leenahay intaas oo hay'ad dimuqraadi baynu nahay. hay'adii sharci dejinta fadhida, hay'adii fulinta jirta, hay'adii garsoorka oo ka midnayba ayaa jirta. check and balance baa ka dhaxeeya intaas oo hay'adood. marka wuxuu baan inuu yahay ninkaasi nin in propaganda ay qaranka. Ismaan Axmed Ismaan Saabti Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.